maanta waxaa idin wada qiso cajiib ah gabar ay soo wacatay oo walaasheen ah oon ku nool wadanka Kenya mana sheegaya Kenya meesha ugu nooshahay qisadan waa qiso oo subhanallah ah wadanka Kenya weeyahay wadanka Kenya ku nooshahay gabadhan baayida waxay ii sheegtay maasha Allah tabarakallah gabar awliya guursanin ay ahayd laakiin sadawaa la qabaa nin baa qabo wiil baa waxay iska barteen Facebook-ga waa ila socotina umaleeyaa abaaya waxay tiri wadanka Kenya ku noolahay gabar aan wali guursanin ahaa wiil baa Facebook iska baranay 3 sano hadda ka hor ah wiilkii waxay tiri Facebook aan iska baranay waa wiil joogo wadanka North America idin dhahay ma idin sheegay Canada inay tahay inay USA ay tahay wadankii waxay tiri North America joogay wiilka cabaar waxay tiri markaa muddo sanadan sheekaysanay kadib waxa uu go'aansaday inuu imaado okay uu igu imaado on guri galno sanad waa markay sheekaysanay kadib aboowe meesha ugu tagay gabadho uu soo guursaday laakiin waxay tiri marka hore sheekada aan bilaabanayna wiilka walaalkay waxay tiri wuxuu ii sheegay inuu xaas leeyahay 5 ciyaal uu leeyahay saas ay tahayna waxay tiri waan ku qaatay ma sha Allah waxay tiri ilaahay ninka raga afar u baneeyay wiil islaam oo dhaqanayo haduu yahay waxay tiri diyaar aan u ahaa marka uu imaaday waxay tiri walaalkay xaaskiisa uu ka qartay waxay tiri kadibna uu imaaday waan guri galnay markaan guri galnay waxay tiri wuxuu nala joogay muddo waxay tiri ila joogay 6 bilood ah kadib waxay tiri dib uu ugu noqday wadanka uu ka imaaday asoo xaaskiisana ugu sheegay tiri inuu wax shaqo ah uu meesha uu joogo uu sameeynayo waxyaalo business iyo waxyaalo isku xirxiranayo marka anigana waxay tiri waana raaliyan ka ahaay tiri waana marka hore tay balantayna naheeday tiri aan u sheegin marka abaaya waxay tiri wiilka waxay tiri wiil daacad u ahaa هذا waxay tiri mid aan sameeyo waxay ahayd tiri gabadhan in ay qabtay cudurka HIV-ga oo waxay tiri markaan buu la sheekaysanayay sanad ka hor liga helay intaas sheekada anaga bilaabanin marka cudurka markii la ii sheegay waxay tiri waa ogaayay tiri inaan faadmo waxay tiri wadankan joogana daawaan ka heleenay haatee waxay tiri cudur halis oo dilaa uu yahay aniga waxay tiri hamigaygu ahaa gabar yar وولدت كوها منيس إنه يقول سبحان الله لكن سوحيتري ذاتك أنا لجوجو يفهم كان نجوا يكور قبيني تري عذرك سجى إنا قبوه صوص الأول يدو حيتري مقالة ده أنا جوجو من مكة شكان سني كريم مركا وحا وصود عد عيرق اللوم يسنى يساشر وحا وصود عويل كان هذا ويل كويس قرصين ويقول الجلين ما شاء الله عبار كدبو ويلك ودنك يدبو ونقضي waxay tiri faadmo salaada intuu wiilka ila joogay uurku waa iska ilaalinay waxa yeelay waxay tiri waa waxay tiri cudurkayga cunuga aan dhalana waxay tiri inuu hidowtay cudurkaas uu infect gareynayo waa ogaa marka uurku waa iska ilaalinay wiilkii qabana ma ogeen adigu waxay tiri hadda markuu wiilkiiga noqdo waxay tiri walaale macaanay waxay tiri wiil aad u badan ay la soo siyaaday sababtoo wiil muslim oo xaas leh ilmihiisa u xoogsanayo aan been u sheegay waxay tiri aan cudurkii u qariyay wiilkii waxay tiri xaasuuna lahaa ilmuhu lahaa wuu iga laabtay hadda waxay tiri noloshayda 24 saac waxay tiri waxaan ku fikiraa ma isdishaa adduunka ma isdhaafisaa sababtoo taydi anoo ay haysatay waxay tiri hadda waxaan ogaaday inaan nafsad kale aan halaagay nin ilmo la reer leh oo nafsadiisa maanta waxay tiri oo ka warqabinay tiri cudurka inaan qabo ilaa hadda waqtiga la taagan uu soo ka warqabin marka waxay tiri walaalaha Soomaaliyeed waxa ka codsanaa in la ii soo duceeyo ana cudurka qabana dambi waan galay ilaahay subhanahu wa ta'ala ii dambi dhaafo laakiin subhan walaalaha ka codsanaya maxaan sameeyay tiri kullu fahamka sidoo halaagmay saan dareemay waxay tiri aan cudurka cabaar wahayay tiri wiilkana ma ogo xaajigayga waa uu imaado waa isbarsan oo guri galay marka kala wasana xaas kala lahaay tiri way noqday xaaskiisii ku noqday وهذا عبارة إجسي مقيهاي
marka maxaa sameeyaa talo ay tiri walaalayaal maxaa talo isiinaysiin mana rabay tiri meesha aan joogo wadanka aan joogo kaliina furka sheegtaan waa meesha aan joogo ina sheegtay mar rabiyay tiri oo dhahdid maanta meeshan joogtaa gabadha iyada ah sababta wiilka heladiisa joogo nin ragaa waxay tiri nafsadiisa iyo familkiisa waa halaagay marka nafsadayda aan cabsanaya anoo waqtigeedii la fikraa waxay tiri Allah ka ku fikraa inaan isdila mar soo cabtaa maxaa samaysaa ku fikraa ay tiri marka walaalayaal waxay tiri hal ii soo duceeyo hana la ila soo taliyay tiri maxaa ku sameeyaa wiilka asaga ma u sheegaayay tiri oo ma dhaha walaalo markaad guursanayso cudurkaas qaba ee cudurka iska baar ma dhaha maxaad ugu talin lahayd هلا هذا guys marka maxaa sameeyaa ay leedahay gabadhan walaasheena maxaad ugu talin lahaydeen marka walaalayaal waa qisa cajiib wallahi aad iyo aad oo uga xumaaday even hatta idin sheegaya hatta jirkeen gurguriiraya sababtoo xaasidnimada ay u gashay wiilka walaalkeeda gabadhan marka insha Allah wixii comment iyo wixii tala ah iyo wixii waana ah meeshas ugu soo qora gabadhan Soomaaliyeed marka maxaa sameeyaa ay leedahay ma u sheegaanay oo ma dhaha cudurkaas aan qabay walaal waana ku qariyeen marka de talada waa xaqiina talada waa ilaahay laakiin sinigana walaalaha yaa tihiin ma sha Allah aad iyo aan idin jecelahay aad iyo aan idin ka mahad celinaysaa igu xiran tihiin aad iyo aan waxaan idin ka mahad celinaa commentiyadiina positive ka ma sha Allah dad badan wallahi soo wacday oo igu dhahay walaalaha Soomaaliyeed oo janalka ku xidhan aad u wanaagsan waaye dad badan oo noloshooda wax badan ka bedesheena jirto marka insha Allah wax kula talin lahaydeen gabadhaas hadduu Ilaahay raali ka noqdo meesha ugu soo qora marka aniga aad ma waxaan dhihi lahaa ani ayada horta hada waxa ma dhahay markuu hore waxaan dhihi wiilka iyo wiilasha Soomaaliyeed idil walaalayaalo inigoo gabdhihi aad qabteen khiyaanaysiin inigoo wax alla raali ka ahayn sameynaysiin wixii waaye gabdhihi Soomaalida oo hintooda dhamaatay nin kasta oo markaad naag rabtid mise markaad safar aadaysid hadaadu waxaad u saacido aad wartid habeenkan meel ku hoyd inaad naag kala guursatid gabdhaha islaamka oo ilmaha idin dhal oo guryaha aad uga tagaysiin cudurrada u keenina ilmihiin qoysaskiina hore halaagina marka Ilaahay ka cabsada hadii hata aadam cilin inaad naag guursatiin gabdhaha aad guursanaysiin adduunyo la hormaral joogo 2018 ka la maraya 19 ka nagu soo socdo marka meel Allah meesha tatiin hadaad tatiin naag ku guursatiin war naagaha iska baara oo familiyada halaagina oo ilmaha halaagina oo gabdhaha aad ka tagaysiin caafimaadkooda ilaaliya bisinke wallahi wixii way waqti xunaan lagu jiraa nin kasto waa inaad is ilaaliso marka dadka cudurrada ayaga leh cudurka rabbiga keena dadka xanuunsan rag iyo dumarba walaalaha kale adiga haduu Ilaahay ku keeno cudurka suuq ugu soo galaybo wixii way inaad Ilaahay ku xamdiso oo ku shukriso oo Ilaahay weynaa waxka aad weydiisatid inuu shifa ku siiyo ma ahan inaad familiye kaleeto iyo walaal adoo xanuunsan oo already oo inaad dhimanayso marka hore bini'aadan ha oo ogay haddana cudur xun ku haleelay dambi ha sii galin marka waxa idin dhihi lahaa ha u qarinina rag iyo dumarka ha u qarinina cudurrada xun oo la kala qaado walaalaha kaleeto oo noloshooda halaagina marka arrin aad looga xumaado way wallahi gabadhaas arrinteeda aad iyo aad ay ii taabatay marka waxa ay sameeyso muslimnimo ka baxay waayo Ilaahay wanaagga ha u dambi dhaafo marka walaashayna waxaan dhihi lahaa wiilka aad halaagtay walaalay macaanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala horta Ilaahay asagii faamilkiisa ka qabto cudurka asaga adna Allah ka caafiyo laakiin wiilka uu sheeg si uu dhaqsiyaha badan si uu iska gaarin tuu viruska isku dilaacay duu virus uu qaaday marka si uu dhaqaatiirta oo la kulmo xaaskiisa hadii asaga hataa uu haleelo xaaskiisa uu badbaadin karo ilmihiisa uu badbaadin karo walaalay sida ugu dhaqsiyaha badan wiilkaas ugu sheeg inaad cudurkaas qabtay oo u qarisay marka halaasan ku dhihi war hal is ilaaliyo dad xaasidiinaha jiro dad cudurrada dadka kale u qarnaya jiro marka insha Allah hal is ilaaliyo walaalayaal aad iyo aad waa idin jecel aad iyo aad waa idin salaamaya meel baakinan ku jira waa aragtiin isbitaal balanka leeyahay socda marka caafimaad iyo khayr idin ka tagaaya hooshana iniga idin daa insha Allah idin leeyahay dhamaantiin marka wixii comment ee meeshaas insha Allah walaalaha kale la share gareeya waa arrin cajiib wallahi billah waa arrin anaga idin waxna taraysa rag iyo dumarba inaan si share gareyno
si aan u ogaano waxyaalaha socdo xumaanta maanta meesha ay gaarsiisan tahay iyo xaasidnimada marka aan waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadkayga hata gurgurida ciilkii ahaa keli gabadhaas miskiid oo laga tago ilmaha haysto oo haddana cudurrada xun loo keenay faamilkeeda la halaagay marka taasaa ciilkeedii haya wallaahi